waxaa maanta lagu qabtay xafiiska ururka dalkaab Community Development Center munaasabad lagu xuseeyay sanad guuradii saddexaad ee ururka waxaa ka soo qayb galay madashaas marti sharaf kala duwan oo ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Sanaaga isuduwaha wasaaradda qorsheynta iyo qaar ka mid ah ururada bulshada. waxaa ugu horeyn ka warbixiyay marxaladaha uu soo maray ururkaasi afhayeenka ururka dalkaab. ururka dalkaab waxaa la aasaasay 2012 bishii sideedaad koob iyo sodonkeedii ujeedooyinka loo aasaasay waxay ahaayeen waxbarashada iyo kor u qaadista aqoonta in la isku wacyigeliyo dhiirigelinta aqoonta qiimaha ay leedahay. waxa uu focus ka saaray gobollada Somaliland oo dhan, laakiin iminka waxa awoodda ugu badan kuleeyahay gobolka Sool Sanaag. waxyaabaha ugu qabso waxaa ka mid ah ururku waxa uu furay dugsi hoose dhexe oo leh fasalada koobaad ilaa sideedaad oo lacag la'aan ah ay ka faa'iideystaan dadka danyarta ah ee degan degmada Ceergaabo. ardayda dhigata waa ilaa 300 oo arday. waxa iskuulku sidoo kale u suurtoobay inuu iskuul waxbarasho oo iminka socda, laakiin dhismihiisu uu ilaa hadda dhammaystiran yahay. hal fasal uu ka furay dugsiga Masagan. sidoo kale iskuulku wuxuu sheegay 20 kursi iyo miisaas isugu jira ku wareejiyay labada iskuul ee fiqiga iyo xabaalo Camaare. wuxuu isna laba taangibiyood oo dadku biyaha ka cabaan ka hirgeliyay Masagan. wuxuu kaloo wacyigelin xagga waxbarashada deegaanka qiimaha uu dhirtu iyo daaqu u leeyihiin uu ka fuliyay deegaanada Sool iyo Sanaag. waxaanu wax ka qabanay annagoo la kaashanayna jaamacadda Nugaal University inay arday scholars noo siiso iyo laftigood scholarka ka heshay Turkiga. aan u mahadinaynaa sida dhalinyaradu isu soo xilqaantay dalahooda gaar ahaan ka guud ahaaneed baya ka guudba ay isu xilqaameen ka soo shaqeeyeen 3 sano ee aynu hadda tan ku jiro inaad dhaqaajisaan inaad halgantaan inaad tacliinta iyo waxbarashada mid walba ay inoo samaysaan garabkiina allaha galo inaad meedan hadda 3 sannadood baad jirteen 3 sannadood ee aad jirteen wixii laydinka faa'iiday dee ku guulaystaan idinle. salaamu calaykum warahmatullahi. waxaan rajaynaynaa in sidaa uu ururku u yeelan yahay uu doonayo in wax u qabto inaad ula qabataan. waxaa ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka iyo gudoomiyaha gobolka Sanaaga isaguna soo xiray kulankaasi. walidaha balyeynaya marka koowaad mar labaad aad baad u dadaasheen dadaalkiina inkastoo halkii la rabay uusan gaarin, laakiin meel fiican baad marinaysaa. idinku tiina waad ka soo baxdeen tii dowladda iyo tii NGO-yada international iyo local iyo UN baan noqdeen. iyaga u baa intii ku contribute gareyn lahaayeen ay meesha ka maqan tahay. taana insha Allah way gaari doontaan haddii la dhacdo. aad baan runtii farxad ay ugu tahay maanta inaan ka soo qayb galo dhalinyaradan aad iyo aad qiimaha u leh ee halka kan mataqaanaa maanta soo diyaarisay xafladda qiimo badan leh. runtii aad baan ugu faraxsanahay. waan idin mahadcelinayaa. halka kan waxaad ka tilmaanteen oo aad sheegteen in aad horumarka aad uga shaqaynaysaan sida waxbarashada iyo biyaha aad ka shaqaynaysaan. waxaan keliya oo idinkula dardaarmaya waxa weeye inaad hawsha kordhisaan. meel fiican baa marinaysaan. iskuullada freega dhisteen iyo kuwa imika soo wadaan iyo horumarka aad ka shaqayseen oo dhan waa wax runtii fi aakhiraba liibaan diina. iskaashi baa lagu gaadhaa horumar. waa Muxsin Maxamed Siciid, Somali Channel, magaalada Ceergaabo.